madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo booqday hoyga ay taalo gogosha tacsida Allah u naxariistay imaam Maxamed Yuusuf Cali ayaa saxiixay buugga tacsida imaamka. madaxweynaha ayaa si gaar ah ula wadaagay qoyska ehelka iyo dhammaan dadkii uu ka baxay marxuumka dareenka tiiraanyada leh iyo murugada geerida imaamka, isagoo alla uga baryay inuu hoogiisa ka yeelo jannatul firdaws samir iyo iimaanna ka siiyo qoyskiisa, asxaabtiisa iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed. dhammaan akhyaarta meesha fadhida duubabka leh akhyaarta kala duwan leh gabdhaheena sharafta badan dhammaan waa salaamaya salaanka gadaal waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa dadaalkii muddada usbuuca ahayd aad soo bixiseen tacsiidana ay jirtay iyo maxaa gogol fadhigii aad in badan oo adinkeedii kamid ah aad u ahaydeen gogol fadhi dadkii Soomaaliyeed tacsiidan u yimiday tacsiida gudanayay aad iyo aad ayaad muxuu ahay ugu mahadsantiin hawshaas aad muxuu ahay noo wada qabateen maanta iyo ka horba intaan nimaad waa jeclaan laakiin mashquul adduunyo unbaa yaa dib noo dhigaya dhibaato kale ma jirin. imaam Maxamed Yuusuf Allah u naxariisto aniga si gaar ah ayaan saaxiib u ahayn. dabcan oday Soomaaliyeed oo shirarkii dib u heshiisiinta dowlad dhiska Soomaaliya intay dhacayeen oo dhan ka mid ahaa odayaashii ugu waaweynaa geed fadhiga u ahaa ayuu ka mid ahaa. si qaasa aniga iisii taabataa 2012 markii ugu horreysay aan xildhibaan noqday xildhibaanadeedii ninka saxiixa u ahay oo muxuu ahaay dadaal badan iyo meelo badan la isku qabsaday. akhyaartii waa joogaan suldaan shidda ka mid ahay oo meeshaan fadhiya asigana muxuu ahaay cumrigiisa Allah raajiyo. intaasi wixii iyo intii ka horreysay kasii hor dowladda sidii soo socotay hadday tahay carte hadday tahay imbagaati hadday tahay meelo badan imaamku muxuu ahaay doorow ku lahaay mar walba iyo maxaan ku irahdaa intay la ekaydba meeshaasna odayaashii akhyaarta ahaay qaar badan oo kamid ah Allah u naxariista waa dhinteen qaarna waa fadhiyaan waa joogaan dowlad dhiska iyo dowlad soo gaarsiiyey maanta meesha ay joogto ayay kamid ahay. marka Soomaalidu imaamka Allah u naxariista wax badan oo dadaal Soomaaliyeed ah ayuu ku soo jiray. imaam reer gaar ah imaam u ah ku magacaaban waa ahaa laakiin howlihiisa inta badan ma ahayn howlo oo reer gaar ah muxuu ahaay shaqadooda ku xadidan ma ahayn. marka muxuu ahaay Allah u naxariisto dhammaanteena sabir iimaan Allah naga siiyo. si khaas ah qoyskii iyo eheladii oo ka dhashay oo ka baxay sabir iyo iimaan Allah naga wada siiyo. maxaan ku irahdaa waa horan waa isugu tacsiinay gaarkayga iyo akhyaarta kala adeerada kulli waa wada arkay Allah u naxariisto. waxaan rabaa haddee imaamkii waa tegey waa naxariista rabbi ayaan u baryaynaa in ilaahay samir iimaan annagana asna u naxariisto janno qabrigiisa u waasiciyo. imaamka soo socda oo mas-uuliyaddu ay ku wareegeysaan howl culusaa ku wareegeysa asigana waa u ducaynaynaa in ilaahay maxaan ku irahdaa hawsha oo fududay uu la garab galo. annaguna imaamnimadaasi sida ay tiir iyo xoog u lahaa lahayd Soomaalina ay ugu shaqayn lahayd inaan ka wada shaqayno oon ku garab istaagno waaye intiinay timiday muddada usbuuca halkan isaga soo daba noqonaysay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. xil weyn oo wanaagsan ayaad naga dhammayseen. mar kale galabtaa gogosha ugu dambayso waa xiranaynaa waa la ila sugay waa la dhowray waa mahadsantihiin waana ka ducaynaynaa in ilaahay maxaan ku irahdaa qabrigiisa u waas asaan u ducaynaynaa in ilaahay qabrigiisa u waasiciyo jannatu firdawsana ilaahay uu ka waraabiyo annagana gadaashiis ilaahay nama fidnayo sidii loo wada yiri khayr iyo adikuna waa mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.